Soomaaliya iyo siyaasigan yaa kula qiimo badan madan shakhsi mise mid qaran ayaa taageersan tahay waa kuma qofkan haddaad ku wareysan tahay qofka uu yahay dib u eeg wixii la soo maray qaran dhiska bulshada rayidka ay hormuudka u ahaayeen siyaasigan wax qayb ah kuma lahayn ee qurba joog buu ahaa dalka waxaa dib u dhisay Soomaali isla qaantay ganacsato dabooshay baahida bulshada hal door u kacay dib u xoreynta iyo daafaca dalka barbaariyaal bulsho kuwaasoo aasaasay hay'ado waxbarasho oo ay ka aflaxeen kumanaan dhalinyaro ah Soomaalida waa ay heshiisay waxayna dhisatay dawlad loo dhan yahay doorashooyin la isla ogol yahay baa dalka ka dhacay xelalka baa lagu kala wareegay si nabad ah halkaasna waxaa kaga soo biiray hayaanka dawlad dhiska siyaasigan oo ka maqnaa burburkii dalka iyo dagaal wixii bulshada soo martayna aan ka warhayn waa farmaajo 4 sano oo uu xilka hayay kadibna Soomaaliya waxay dib ugu noqotay shirarkii dib u heshiisiinada oo ay garwadeenka ka ahaan jireen wadamada Afrika sidoo isagu dalbaday shirarka dib u heshiisiinta Soomaalida loo qabtay ayaa waxay ka dhaceen 30 sano ee la soo dhaafay wadamada Djibouti, Kenya, Ethiopia iyo Masar intooda badan waxba kama aysan soo bixin hal heeska hogaamiyaashii kooxaha wuxuu ahaa looma dhama 2012 ay Soomaalida ka qaangaartay dhul shisheeye ku shiris iyo dhexdhexaadin shisheeye balse jacaylka Maxamed Farmaajo uu qabo kursiga ayaa dib ugu celiyay halka hayaanka dawlad dhiska ka soo bilaabmay hogaamiye kooxeedyo iyo dagaal oogayaalna ay u qiildayaan sharci darada Farmaajo waxa dib u soo noqday qabyaaladii waxa laga baqayaa in dagaalo dhacaan kii fahamkiisu liitay meesha madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu dalkan ku waday markhaati waxa kuugu filan meesha hadda la taagay qof walba Soomaali ah inuu aqbalo waayo maanta dariiqa uu madaxweyne Farmaajo xilkiisu dhamaaday dalkan ku wado god buu ku wadaa waa inaan hadda ka sii dignaa taariikhda isqoraysa oo maanta isfasiraysa